Assalaamu calaykum. North Korea, waqooyiga Korea. Maanta waxaan ka hadlaynaa waddan ka mid ah wadamada ugu xirxiran, go'doonka ugu badanna ku jira dunida. Hal qoys ayaa 70kii sane la soo dhaafay gacan bira ku xukumaya. Waa qodax ka soo horjeeda awoodda military ee ugu weyn dunida, Mareykanka. Waxaynu raacaynaa qariirada waqooyiga Korea si aynu wax uga ogaano dhalashadii iyo aasaaskii waqooyiga Korea. Intaan u gudan galin mowduuceena, waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaan gaarno 1000 subscribe. Targetkeena labaad waa inaan gaarnaa 2000 subscribe si aan u gaarno. Haddii ay tahay markii ugu horeysay, fadlan nagu soo biir oo subscribe taabo. Sheekadu waxay ka bilaabanaysaa intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunyada. Waqtiga qaaradda Aasiya waxaa qaybo badan oo ka mid ah haystay boqortooyadii Japan oo ay isbahaysi ahaayeen Jarmalka, waxaana ka mid ahaa jasiiradda Korea. Sanado uu dagaalka socday, Mareykanka ayaa ku dhuftay hubka khatarta ah ee atomic bomb magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki oo ka mid ahaa Japan, iyo qabsashadii Manchuria oo ay qabsadeen Midoogii Soviet ayaa sababtay inay boqortooyadii Japan isdhiibto. Labada awoodood ee Soviet iyo Mareykanka ayaa markaa kadib ku heshiiyey inay si ku meel gaar ah laba u kala qaybiyaan jasiiradda Korea. 1947 waxaa bilowday dagaalkii qaboobaa ee u dhexeeyay Mareykanka iyo Soviet. Sidaa darteed, labada awoodood waxay ku heshiin waayeen Korea. Mareykanka ayaa soo jeediyey in doorasho la sameeyo iyada oo ku hoos jirta dalladda UN-ka ama qaramada midoobay, laakiin Midoogii Soviet ayaa diiday. Si kastaba ha ahaatee, doorashooyinkan waxay ka dhaceen koonfurta. Waxaa halkaas ka dhalatay Jamhuuriyadda Korea ama Koonfur Korea. Waqooyigana waxaa xilka qabsaday Kim Il-sung oo ahaa taliye hore oo hanti wadaagga ah, waxaana taageeray Midoogii Soviet. Waxaana halkaa ka aasaasmay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Shacabka Korea ama Waqooyiga Korea. Waxaa la dhigay aasaaska nidaamka shuuciga ah oo ah in dhulbeereedka dib loo bixiyo iyo in warshadaha iyo dhaqaalaha la qarameeyo oo ay noqdaan kuwo wadaag ah. Xiisada u dhexeeya labada jamhuuriyadood ayaa si degdeg ah u bilowday. 1950, ciidanka waqooyiga Korea oo taageero ka helay Midoogii Soviet iyo Shiinaha ayaa weerar koonfurta ku qaaday. Awood ciidan oo ka socday qaramada midoobay oo ay hogaaminayaan Mareykanka ayaa galay oo dib u soo riixay North Korea, taa oo sababtay inay dib u laabtaan. Jamhuuriyadda Shacabka Shiinaha ayaa soo galay dagaalka markan, waxayna dib u riixeen awoodda ciidan ee qaramada midoobay. Kadib 3 sano oo dagaal ah iyo ku dhawaad 3 milyan oo dhimasho ah, heshiis aan dagaal ahayn ayaa la saxiixay, waxaana la xariiqay xuduud cusub oo ballaceedu gaaraya 4 kiiloomitir halka dhererkeedu gaarayo 250 kiiloomitir. Laakiin waa mid magac qaldan wadata, sababtoo ah xuduudda labada Korea waa mid ka mid ah meelaha ugu badan oo ciidan military ah joogaan adduunka, waxaana si joogto ah u jooga in ka badan 1 milyan oo askari oo labada dhinac ah. Sanadihii ku xigay, waqooyiga Korea waxay mustaqbalkooda ku qaadan doonaan horumarinta warshadaha iyo beeraha si ay u gaaraan isku filnaansho. Taa waxay sababtay in waqooyiga Korea ay gaaraan heerka dhaqaalaha midka labaad ee ugu badan Aasiya kadib Japan. Si kastaba ha ahaatee, Kim Il-sung wuxuu kor u qaaday awooddiisa oo dhan, wuxuuna baabi'iyey nooc kasta oo mucaarad ah oo ka hor imaanayay. Sidoo kale, waddanku wuxuu hormariyay hubkiisa iyo ciidamada xoogga ee commandosta. 1968 waxay isku dayeen inay qaarijiyaan madaxweynaha Kooriyada Koonfureed, laakiin waa uu guuldareystay isku daygaas. Sanadii 1980, caasimadda Koonfurta Korea ee Seoul ayaa ku guuleysatay martigelinta cayaaraha xagaaga Olombikada. Taa ayaa North Korea ku riixday inay dalbato inay ka qayb qaadato martigelinta cayaaraha Olombikada si loogu cayaaro magaalooyin ka mid ah waddankeeda, laakiin guddiga caalamiga ee Olombikada ayaa diiday codsigaas. Kooriyada Waqooyi ayaa isku dayday inay curyaamiyaan cayaaraha xagaaga ee Olombikada iyagoo weerar argagixis u geysanaya madaarka caalamiga ah ee Seoul, waxayna soo rideen diyaarad ay lahayd Kooriyada Koonfureed oo maraysay badda Andaman, taa oo markii dambe sababtay in gabi ahaanba Kooriyada Waqooyi laga mamnuuco ciyaaraha Olombikada caalamiga ah. Hoos u dhacay ku yimid Kooriyada Waqooyi sanadii 1991, kadib dhicitaankii Midoogii Soviet. Waqooyiga Korea waxay weysay mid ka mid ah xulafadeeda ugu weyn. Sidoo kale, Shiinaha oo iyana ahayd saaxiib kale oo weyn ayaa raacday wadadii dib u habaynta iyo furitaanka dhaqaalaheeda, taa oo keentay inay kala wada noqdaan. North Korea ayaa isku dayday inay xiriir diblomaasi oo sir ah ugu soo dhawaato Mareykanka,
laakiin wax jawaab ah ma helin markan. Intaa kadib, waqooyiga Kooriya waxay ku dadaashay inay xoojiso tartankii hubka. Kadib 22 sano oo xukunka hayay hogaamiye Kim Il Sung waa uu geeriyooday, waxaana xilka qabtay Kim Jong Il. isla markaa waddanku waxa uu la kulmay macluul, isaga oo ku qasbanaaday inuu codsado gargaar cunto caalami ah. Wadamo badan ayaa ka jawaabay codsigan, waxaana ka mid ahaa Shiinaha, Koonfurta Kooriya iyo Mareykanka. Kadib weerarkii 11 Sebteembar 2002, Mareykanku wuxuu Kooriyada Waqooyi ku daray liiska wadamada sharta ku ah Mareykanka, waxaana liiskan kula jiray Iiraan iyo Ciraaq. Intaa kadib, waddanku waxa uu dareemay handadaad, waxaana ka baxay heshiiskii diidayay faafidda hubka nuclear-ka, waxayna tijaabadii ugu horreysay sameeyeen 2006. sidoo kale waddanku wuxuu maalgelinayaa boomka balastikada ah si ay u badiso kala duwanaanshaha hubka ay haystaan. 2011 waxaa dhintay hogaamiyihii Kim Jong Il, waxaana halkii ka sii waday wiilkiisa Kim Jong Un oo ah hogaamiyaha maanta ee North Korea, wuxuuna sii dardargeliyay baaritaanka hubka. 5 wareeg oo tijaabo ah, North Korea waxay ku dhawaaqday inay ku qalabeysan yihiin hubka sida aadka xukumaada ee nuclear-ka. sanad kadib, gantaal dheereeye oo balastik ah oo qaaradaha ka kala gudba ayaa si guul ah loo tijaabiyey, waxaana baqdin iyo caro ku abuurtay wadamada dariska ah sida Japan oo u dul maray gantaalkaas. sidoo kale waxay noqotay in markii ugu horreysay uu dhulka Mareykanku galo khatar nuclear ah. iyadoo taa laga jawaabayo, waxaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku soo rogeen waqooyiga Kooriya cunaqabatayn dhaqaale taa oo ka dhigtay waddan aad u go'doonsan. dabayaaqadii sanadii 2017, xiisadaha ka dhexeeya Kim Jong Un iyo Donald Trump ayaa kor u kacay, laakiin 2018 waxaa Singapore ka dhacay kulan u dhexeeya labadan hogaamiye ee mayalka adag, inkastoo aysan wax heshiis gaarin. ciyaaraha Olombikada jiilaalka ee ka dhacay magaalada Pyeongchang ee Koonfur Kooriya ayaa rajo u noqday nabad, markaa oo labada koox ee North Korea iyo South Korea ay midoobeen. sidoo kale madaxweynaha Koonfur Kooriya iyo waqooyiga Kooriya ayaa markii ugu horreysay kulmay iyagoo ku kulmay xuduudda labada wadan, waxaana mid walba uu ka tallaabay xuduudda dalkiisa isagoo galaya kan kale. waxay noqotay markii ugu horreysay ee madaxweyne Kooriya Waqooyi ah oo ka gudbo xuduudda waddankiisa isagoo galaya South Korea. arrinkan waxay soo jiidatay indhaha iyo saxaafadda caalamka. intaan ayaan ku sameynaa mawduuceena maanta. wassalaamu calaykum.